qofka dad u taraacinaysay hadda kor ugu tuurisay si hogga u tuuray dadka dheeriin hadii ku dhayo tural oo kale oo soo taraacin kartaa laakiin mar walba inaad isku soo dhaweynaa isku day ana soo dhaweynin madaxa waxaan u soo dhaweynin إسحاق كيرو وآدن علي ومقاعديسا بقرشدو يهين عبد اللطيف عمر فاروق iyo Cabdiraxmaan 2014 ayuu isaga tagay tuulada Dudumaale oo u dhow degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool si uu ugu biiro Al-Shabaab safar dheer oo dhulka kadib waxa uu tababar kula qaatay Boosh Madiino 145 dhalinyaro ah oo laga soo aruurshay gobolada dalka Dugle Owdigle Shaam Bariire Baraawe Qoryooley Sabiid iyo Caanoole iyo Aqbari Weyn Golweyn iyo Afgooyo oo dhammaan ka tirsan shabeellada hoose ayuu waqtigiisa ugu badan ee Dhuumaaleysiga ku qaatay marka laga reebay inuu Hiiraan qayb ka ahaa argagixisada weerar gubid ah oo ay ku qaaday kolonyo gaadiid ah oo ganacsato raashin ugu rarneed Bakool kadib markii ay iska diideen baad lagu daharay sunnada diinta Islaamka anaka alwashbalin ka baad abadisi loo shibay marka hortii markii laga qabsaday ay buuray fuulay marka buurta loo ma kori karo هذا كرتون كسر دقيقتين كده أنت كساعة كوك هذا بدينه واتنا يبهرت أساسا مركب حليري هذا صار لابتو بهرت هالجبل أيقرن بهرت مركب أنت اللي جارته وحين هو تأفر تقول جارين هذا أنت اللي جاري من دواب جم واي أنا درا بوش وجم واي ولا جن نوي جنت مركب شدة وبودره ولا جن نوي شلال وش بي شلال كليه با رجل صار لابتي جنتين وحلا ذي كون ما بالجارين ولا صار لكن اللي جوا الشغال كل شوية شركة ما تعرف فرطة شغال كل شوية كراس لوف فيديو جانتي كتعاون مركب كراس مطورة مركب اللي جبناه والراشين إز الجارين intii uu ku jiray jabhadnimada iyo weerarada jidgalka waxa uu soo ragashay inuu noqdo horjoogo kumeel gaar ah waxa uu u joogay jabhad marka katiibada saddex jabhad way marka rigi meelahan joogan fasafasahay rigi hadii magan yihiin kuwa aan loo dhiibtaa yani marka jabhad mid kama liiday madeed waxa raysanayd katiiba ku raysanayd mid liidibay laakiin dhagartiisa oo daran darteed iyo sida uu la dhaqmo reer guuraaga iyo safarleyda jidkan dheer mara waxa ay u suura gelisay in loo tababaro dilalka gaadmada ah ikhtiyaalaad iyo tuurida bambo infanta meelaha dadka ay isugu yimaadaan ee loogu talagalay adeegidooda taas waa ka faa'iiday marka dadka si loo dilaa dadka kaga sheekeeyo qofan waba socdaaba ma ku jeedo kaasoo kale waa fursad laakiin qofka ku soo fiirinayo kale إنها كلهنا وأكتي سمرة هذه كلاش سوبها وفيرنا يكون مشغول أكيد بس كم دقيقة ما كان نافتي وكسر لعنا هذا يكون سوجس كل جريه قف كسرنا مرور بنا قدر كمرتنا هنا قف هرتيس كنوس وبعيس سواء كان وران قف فيرنا إن بحاش الله صباح قف كسو كوجين بأمر كريه وبعدي بهاش قريس وتو قري وتو ما سو قرينا هنا ما بيقولوا هذا كاسو كله تاسو يصبري أحمد عمر علسو oo la dilay 22 January sanadkan ayuu ka qayb noqday Kero waana dilkii ugu horeeyay weedu ka fuliyaan isaga iyo laba kale oo si wada jira u howlgalayeen Kero waxa uu ii sheegay sababta ay uga tanaasuleen isticmaalka bastoolada inay tahay tubta amni oo uu sameystay taliska booliiska gobolka Banaadir taasi oo sababtay in koob badan oo saaxiibadiisa loo diro hoyga dambe aakhiro bastoolad macnaha shaqada ma yaalana in la soo diyaaray rabtaa dad lagu qabtay rabtaa marka qabashada noo badnayd marka qofka bastoolad wato wala dareema marka sawaas dhama jiri marka bastoolada lagu ugaarto in dadku raasto in lagu soo diyaar labadaas way bastoolada waxaan soo diyaarin ma loo sheegin kaasan ahayn anigana ma baraasin jirin marka ma meesha baaburta wareegaysay marka dadkii la dareemo oo kale qabanayo marka shaqada ku roqo lagu dhaxar hada ku dhacdo oo dhawaato marka bambada in la hadurta lagu mashquuliyo wallahi bambadaas markani ku shaqeysanayo tirabama uu ku tuuray meelo kamid ah degmooyinka Yaaqshiid Boondere Shibis iyo wadajir ugu dambeyn nagartiisa argagixisanimo laanta horseed ee degmada Yaaqshiid ay ku soo idlaatay kadib markii uu bam kamid ah 10kaasi ku geeriyooday Allah u naxariistay Faarax Cabdulla Cariif oo kamid ah ciidamada amniga sidaasna ay ciidamada amniga ku soo qabteen Isxaaq Kero May sanadkan
يعني toban baa tuuri 9 waa qarxin halna waa ka tibti 25 bishan ayaa si kama dambaysa loo dhageystay dacwad soo martay dhammaan habraacyadii loogu talagalay hanaanka cadaaladda. ugu dambeyn maxkamadda ayaa maanta go'aan ka soo saartay sida uu ku dhawaaqay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. markii ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah oo la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga qiraalka laga qoray eedeysanaha xaashida cadeynta dhimashada iyo sawirrada marxuumiinta kale ah Faarax Cabdulla Cariif iyo Axmed Cumar Calasow iyo haraaga kursiga uu ku fadhiyay marxuum Faarax Cabdulla Cariif sawirrada laga qaaday goobihii uu bamgacmeedka ku tuuray eedeysanaha marka ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xeeryaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane Isaaq Keerow Aadan Cali uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Faarax Cabdulla Cariif cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillahi tawfiiq. Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho. qofka dad u taraacinaysay iyo hadda kor ugu tuurisay si hogga u tuuray dadka dheeriin hadii ku dhayo tural oo kale oo soo taraacin kartaa laakiin mar walba inaad isku soo dhaweynaa isku day ana soo dhaweynin madaxa waxaan u soo dhaweynin. Isxaaq Keerow Aadan Cali oo magacyadiisa afgarashadu yihiin Cabdiladiif Cumar Faaruq iyo Cabdiraxmaan 2014 ayuu isaga tagay tuulada Dudumaale oo u dhow degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool si uu ugu biiro Al-Shabaab. safar dheer oo dhulka kadib waxa uu tababar kula qaatay Boosh Madiino 145 dhalinyaro ah oo laga soo aruurshay gobolada dalka Dugle, Owdigle, Shaam, Bariire, Baraawe, Qoryooley, Sabiid iyo Caanoole, Aqbari Weyn, Golweyn iyo Afgooyo oo dhammaan ka tirsan Shabeellada Hoose ayuu waqtigiisa ugu badan ee Dhuumaaleysiga ku qaatay. marka laga reebay inuu Hiiraan qayb ka ahaa argagixisada weerar gubid ah oo ay ku qaaday kolonyo gaadiid ah oo ganacsato raashin ugu rarneed Bakool kadib markii ay iska diideen baad lagu daharay sunnada diinta Islaamka. anka alwashbalin ka baad abadisi loo shibay marka markii laga qabsaday ay buuray fuulay marka buurta looma kori karo hadaa kortoonka soo degitaankeeda inta ka saay ku qaaday bulshadu waatan ay horta soo socday marka xaliri laga soo laabto boorta la gubal ay gran baarta marka intii la gaarto waxay noqotay 14 gaaray noqdeen intii la gaaray mid waa gum waana daraad oo shay waa gum waay wala laga nooy jantada marka shada waa boodeen wala laga nooy shada lagu shibay shada kaliya ba laga soo laabtay jantada waxa la waday koon ma la gaarin wala laga soo aray markii lagu waayay shada ku shibay shirka ma taa furto shada ku shibay kuraas lagu fadhiyo jantay ku taana marka kuraas ma toora marka la gubanaan wal raashin is gaaraan intii uu ku jiray jabhadnimada iyo weerarada jidgalka waxa uu suuro gashay inuu noqdo horjoogo kumeel gaar ah. Waxa uu joogay jabhad marka katiibada 3 jabhad way marka rigi meelahan joogan fasafasahay rigi hadii ma go'yihiin kuwa loo dhiibtaa yani marka jabhad mid kama liiday madeed waxa raysanayd katiiba ku raysanayd mid liidibay laakiin dhagartiisa oo daran darteed iyo sida uu la dhaqmo reer guuraaga iyo safarleyda jidkan dheer mara waxa ay u suura gelisay in loo tababaro dilalka gaadmada ah ikhtiyaalaad iyo tuurida bambo infanta meelaha dadka ay isugu yimaadaan ee loogu talagalay adeegidooda taas waa ka faa'iiday marka dadka si loo dilaa dadka kaga sheekeeyo qofan waba socdaaba ma ku jeedo kaasoo kale waa fursad laakiin qofka ku soo fiirinayo kale إنها كلهنا وأكتي سمرة هذه كلاش سوبها وفيرنا يك مشغول أكيد بس كم دقيقة marka dhaaftiyo ku soo laabana haday ku soo jeeso ku dhijire qofka socdana mar walba gadaal ka marto noqonay qofka horta isku soo bixis waxa ka noqonaan qofku fiirnayna bahasha loo soo baxo qofkaas oo ku jeedin baa umar kariya oo badii bahasha goris wato asoo wareeganayna mabul u dhawaaqay kaasoo kale marka taas way soo baray Axmed Cumar Calasow oo la dilay 22 January sanadkan ayuu ka qayb noqday Keerow waana dilkii ugu horeeyay ee weedu ka fuliyaan isaga iyo laba kale oo si wada jira u howlgalayeen. Keerow
waxa uu ii sheegay sababta ay uga tanaasuleen isticmaalka bastoolada inay tahay tubta amni oo uu samaystay taliska booliiska gobolka Banaadir taasi oo sababtay in koob badan oo saaxiibadiisa loo diro hoyga dambe aakhiro. bastoolad macnaha shaqada ma yaalina in la soo diyaaray rabtaa dad lagu qabtay rabtaa marka qabashada noo badnayd oo qofka bastoolad wato wala dareema marka sababahaas dhanbaa jiray marka in bastoolada lagu ugaarto iyo in dadka u raasisto in lagu soo diyaar labadaas way bastoolada waxaan soo diyaarin ma loo sheegin kaasan ahayn anigana ma baraasin jirin marka meesha baabuurta wareegaysay marka dadkii la dareemo okay wala qabanayo marka shaqada ku roqo lagu dhaha marka hada ku dhacdo okay dhawaato marka bambada in la hadurta lagu mashquuliyo wallahi bambadaas markani ku shaqeysanayo tirabama uu ku tuuray meelo kamid ah degmooyinka Yaaqshiid Boondheere Shibis iyo Wadajir ugu dambeyn nagartiisa argagixisanimo laanta horseed ee degmada Yaaqshiid ay ku soo idlaatay kadib markii uu bam kamid ah 10kaasi ku geeriyooday Allah u naxariistay Faarax Cabdulla Cariif oo kamid ahaa ciidamada amniga sidaasna ay ciidamada amniga ku soo qabteen Isxaaq Kerow May sanadkan ani tumba maturi sagaal waa qarxin halna waa kadibti 25 bishan ayaa si kama dambaysa loo dhageystay dacwad soo martay dhammaan habraacyadii loogu talagalay hanaanka cadaaladda ugu dambeyn maxkamadda ayaa maanta go'aan ka soo saartay sida uu ku dhawaaqay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida markii ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah oo la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga qiraalka laga qoray eedeysanaha xaashida cadeynta dhimashada iyo sawirrada marxuumiinta kala ah Faarax Cabdulla Cariif iyo Axmed Cumar Calasow iyo haraaga kursiga uu ku fadhiyay marxuum Faarax Cabdulla Cariif sawirrada laga qaaday goobihii uu bamgacmeedka ku tuuray eedeysanaha marka ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeeryaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareernada difaacaya eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane Isxaaq Kerow Aadan Cali uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Faarax Cabdulla Cariif cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillahi tawfiiq Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho